waxaa maanta xarunta Turkisom ee magaalada Muqdisho tababar lagu soo xiray qaad ka tirsan ciidanka gargar ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana gabagabada tababarkani oo dawladda Turkiga ay maalgelisay ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda oo halkaasi khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in saraakiisha maanta tababarka loo soo xiray looga baahan yahay in ay ku biiraan dagaalka ka dhanka khawaarijta isla markaana ay sugaan xuduudaha guud ee dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa sidoo kale dawladda Turkiga kaga mahad celiyay taageerada military ee hadda jeer la garab taagantay dawladda Federaalka Soomaaliyeed asagoo sheegay in dawladda Turkiga iyo Soomaaliya xiriirkoodu yahay mid ku dhisan walaaltinimo iyo iskaashi qoto dheer sidoo kale ciidankan ayaa la filayaa in ay ku biiraan saacadaha soo socda kumanaan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka isla markaana jihaad kula jira kooxda gobolka dhacay ee ugu